Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal. Waa aniga Khalid Maxamed Cabdullaahi. Channelkan aad naga daawanaysiina waa Faa'iido Channel. Waxaan aad iyo aad inoo codsanayaa inaad channelka subscribe iyo like iyo share aad nagu caabisiin aadna garab istaagtiin. Runtii qofka waxaa wanaagsan inuu qof maalintii hal qof uu ka farxiyo. taasna haddii aad anagu subscribe like iyo share iyo taageeradiina aadna garab istaagtiin runtii maalintiina aad samaynaysiin aadna una farxad gelinaysiin. Marka runtii aad iyo aad baan ugu boorinayaa inaad channelka subscribe iyo like iyo share aad noo sartiin. Marka koowaad maanta waxaan wadaa mowduuc ah stresska iyo sida la iskaga baabi'in lahaa. Horta stress micnaheedu waxay tahay stress waa qofka jirkiisa siduu u shaqaynayay uu iska bedelo oo mowjad kale uu galo, taas ayaa stress la dhahaa. Waxaa jira habab badan oo qofka stressku iskaga bixin karo. Waxaa ka mid ah jimicsiga qaybihiisa kala duwan. Runtii inaad jimicsi sameysaa jirkaagu wuxuu ku soo celinayaa sida hore u ahaa. Waana caafimaad qofka inuu at least jimicsi sameeyo maalintii. Waxaa jira stressku qaabo badan oo kala baxo. Waxaa ka mid ah stress farxadeed ama qofka inuu stress farxad uu dareemo. Sidii hooyadoo kale markay uurka leedahay oo kale waxaa jira stress ku dhaco oo ka fikirtaa sida ay cunugeeda u noqon lahaa, si ku dhali lahayd, magacay u bixin lahayd, dharkii u xiran lahayd, caanaha siin lahayd. Kaasi waa stress farxadeed. Kaasna mushkilad ma lahan. Waa wax dhaco oo jirka ku abuuran oo Ilaahay dadka uu ku abuuray khaasatan hooyooyinka. Waxaa kaloo jira stress ku dhaca inuu qofka si nafsi ahaan ah ama inuu fikiro ama waxyaabo badan maskaxdiisa ka dhaadhiciyo. Taasi wuxuu uga badbaadi karaa qofka in uu nasiyo badan uu nasto ama shaqo badan uu qabto. Qofka markuu shaqo badan qabto runtii badanaa wax maskaxdiisa ku jira way ka baxaan oo daalkii waa ka tambato. Markastana qofka markasta uu shaqeeyo ama markasta uu hawl culus qabtaa qofka aad iyo aad u daalaa kamana gaara inuu wax ka fikiro ama maskaxdiisa ku taagnaado ama stresska badan uu ka baabaya. Waxaa kaloo jiro qaab saddexaad oo ah qofka waxaa la dhahay jaamacaddu ay sameysay cilmi baaris badan oo la sameeyay. Waxaa jira qofka guurka markuu guursado inuu badanaa ka baxaan murugada ama stresska uu ka nasiib badan yahay. Runtii taas waxaan leeyahay dadka singalada ah inay iska guursadaan. Guurkan waa iska sunno, waa sunnada nabiga. Runtii qofka guurka markuu guursado Ilaahay waa arsaaqada waafaji, Ilaahay waa arsaaqada u furo waxyaabo badan oo ku taagnaa ka foga. Waa una iska baraka badan yahay mar waliba. Stress waxaa kaloo ka baabi'in kara oo ka saacideyn kara inuu qofka leeyahay family jecel ama dad jecel. Badanaa familkaadu haddii ku jecel yihiin waxyaabo badan ama wax badan oo dadka kale aad kaga duwan tahay ayaa jiro oo ka baabi'in karo. Runtii familkuna waa lama huraan ama waalidku jecel oo kale aad xanuunka la qaybsan kartid. Waxaa kaloo jira in qofka asxaab uu leeyahay ama asxaab wanaagsan. Runtii saaxiibka wanaagsan waa qofka wax kasta oo noloshaada ka mid ah kula qaybsanaya dhib iyo dheef. Haddaad dad wanaagsan ama asxaab fiican haysatana runtii aad iyo aad ayay kaaga caawinaysaa. Maanta barnaamijkaygu intaas ku joojinayaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijyo kala duwan oo adinka faa'iido ah inaan idin soo gudbiyo. Muhiimadu waa inaan idin soo gudbiyaa wax adinka ina farxad geliya iyo wax adinku aad cilmi ka faa'iidin mar waliba oo wax inay taro. Taasana ugu khayr badan.